Ra'iisul Wasaare Xamza oo daahfuray mashruuc ay dhaqaale badan ka helayso dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka falceliyay tallaabooyinka ay qaaday NISA Soomaaliya oo xil sare iyo taageero culus ka heshay urur goboleedka IGAD iyo 5 qodob oo laga soo saaray iyo weliba sidoo kale aabe 60 sano jir ah oo lagu dhexdelay saldhigga degmada Dherkenley. soo dhawaada muuqaalka sii sheegay qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee aan dul istaagi doono haddii tahay markii kugu horeysay YouTube-kana soo booqatana fadlan subscribe oo gambaleelkana furo ku mahadsanidin. muuqaalka sii sheegay like la dhacan like waa inuu muhiim aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray mashruuc muhiim ah oo ah dhoofinta hilibka xoolaha Soomaaliya ee loo iibgeeyo boqortooyada Sacuudiga. munaasabadda daahfurka oo ka dhacday Hotel Jazeera ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, xildhibaano, safiirka Sacuudiga ee Soomaaliya, ganacsato iyo marti sharaf kale. Ra'iisul Wasaare Xamza oo khudbad ka jeediyay madasha ayaa mashruucan ku tilmaamay tallaabo guul ah dhoofka hilibka xoolaha Soomaaliya maadaama ay ogolaatay Sacuudiga. sidoo kale waxa uu xusay in dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatada ay ka heli doonaan dhaqaale iyo shaqo abuur ka badan kii laga heli jiray dhoofka xoolaha nool. waxaa kaloo intaasi ku sii daray in dowladda ay xoogga saari doonto maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin xoolaha oo caan ku tahay Soomaaliyaha. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale ugu baaqay ganacsatada inay maalgashi ku sameeyaan kheyraadka dalka gaar ahaan dhinacyada xoolaha, beeraha, kalluumeysiga iyo tamarta. dhanka kale Xamza oo ka hadlayay fursadaha suuqa ganacsiga ee Bariga Afrika ayaa sheegay in ku biirista Soomaaliya ee dalalka ku mideysan dalada iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika ay u tahay ganacsatada Soomaaliyeed fursad muhiim ah oo ay tahay inay ka faa'iideystaan iyagoo leh xuquuq la mid ah kuwa dalalka kale ee ku mideysan dalada. si kastaba xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal gelisay in dowladda Sacuudigu ay u ogolaato suuqyada dalkeeda in loo dhoofiyo hilibka xoolaha Soomaaliyeed kadib markii ay ku qanceen caafimaadka iyo tayada hilibka xoolaha dalkeena, taasi oo qayb ka ah qorshaha xukuumadda dan qaran ee horumarinta dhaqaalaha dalka. dhanka kale ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka NISA oo haatan ku tallaabsatay isbeddello waaweyn. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa warbixintiisa ku sheegay in NISA ay ahaan jirtay meel lagu dhibaateeyo shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, balse haatan taliska hay'adda uu wado qorshe ballaaran oo lagu hagaajinayo sumcadda iyo magaca hay'adda NISA. sidoo kale wuxuu bogaadiyay xafiiska cusub ee garmaqalka dadweynaha oo ay hay'addu soo kordhisay si ay uga jawaabto cabashooyinka shacabka iyo eedaha loo jeediyo. ma aha in muwaadinku uu cabashadiisa oo qura gudbiyay waa in uu tabiyaa haddii uu arko xadgudub lagula kacayo muwaadin kale, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxaa u dhignaa sida tan: waa mid siloon sooyaalka hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA burburkii ka hor iyo kadibba waxay ahaan jirtay hay'adda lagu caburiyo laguna cabsigeliyo shacabka iyo siyaasiyiinta. taasi waxay dhalisay in dad badan ay saas iyo sumcad xumi la xiriiriyaan magaca hay'adda. haddaba hagaajinta sumcadda, magaca iyo waxqabadka hay'adda waa laga maarmaan in loo sameeyo sharci ay labada gole ee baarlamaanka kula xisaabtami karaan. hay'adda iyo howlwadeenkeedu waxay ahayd tillaabo wanaagsan. furitaanka xafiis ay dadweynuhu toos u gudbin karaan tabashada ay ka qabaan xadgudubyada ay galaan saraakiisha ama ciidamada NISA ee ka dhanka ah xuquuqda iyo xorriyaadka aasaasiga ah, ku tagrifalka awoodeed, cadaalad darrada, musuqmaasuqa iyo dhammaan dhaqannada dhaawici kara sumcadda hay'adda ama bini'aadanimada ka baxsan. waa tallaabo shacabka u furaysa ilinka la xisaabtanka NISA. dalal badan ayaa leh xafiisyo iyo hay'ado madax bannaan oo looga cawdo xadgudubyada iyo tagrifalka ay geystaan hay'adaha amniga, waase kuwo ka madax bannaan hay'addaasi. si yeeshee inuu hoggaanka hay'addu hal abuurkan oo kale la yimaado iyadoon cidna ku khasbin waa tallaabo bogaadin mudan, waxayna wax ka tari doontaa dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada. sababtoo ah dagaalka lagula jiro argagixisada waa laf-dhabar u ah sirdoon bulsho community intelligence, kaasoo ay laga maarmaan tahay in shacabku ku kalsoonaato hay'adda sirdoonka si ay ula wadaagaan xogta la xiriirta argagixisada.
haddaba maaha in muwaadinkuna uu cabashadiisa oo qura gudbiyo, waa inuu tabiyaa haddii uu arko xadgudub lagula kaxayo muwaadin kale ama habdhaqan aan wanaagsanayn ee ay ku kacayaan ciidanka NISA. Waxaan ku boorinaynaa laamaha kale ee amniga, gaar ahaan booliiska, inay ku daydaan hay'adda nabad sugidda oo ay furaan xafiisyo looga cawdo xadgudubka ay ku kacaan ciidanka booliiska. Waxaan sidoo kale usoo jeedinayaa xukuumadda inay dhisto xafiiska gardoonka ee uu dhismihiisa farayo qodobka 129 ee dastuurka, si ay dadweynuhu helaan hay'ad madax bannaan oo looga cawdo xadgudubyada ciidamada iyo hay'adaha kale ee maamulka dowladda. Dhanka kale, waxaa la soo gabagabeeyay shirkii Jabuuti uga socday madaxda urur goboleedka IGAD, kaasi oo laga soo saaray war-saxaafadeed ilaa 5 qodob oo ku jirtay safgarad. Madaxda IGAD ayaa toos u quseeya Soomaaliya. Qodobka koowaad ayaa dhigaya in ku-xigeenka xoghayaha guud ee IGAD laga dhigo qof Soomaaliya, iyadoo xubintaasi ay soo magacaabi doonto dowladda Soomaaliya. Sidoo kale, isla qodobkaasi waxaa lagu xusay in 4 sano oo kale madaxweynaha xoghayaha guud ee IGAD loogu kordhiyay Orkeni Gebiyow ee u dhashay dalka Itoobiya. Madaxda IGAD waxay bogaadisay guulaha ciidanka xoogga Soomaaliya ay ka gaarayaan dagaalka, waxayna caalamka ka codsadeen in cunaqabataynta hubka laga qaado Soomaaliya si argagixisada ay ugu adkaato. Haddaba qodobada laga soo saaray urur goboleedka IGAD qodobada laga soo saaray ayaa waxay u dhignaayeen sida tan: 1. In ku-xigeenka xoghayaha guud ee IGAD uu noqdo Soomaali ay soo magacowdo dowladda federaalka Soomaaliya, halka muddo 4 sano ahna xilka loo kordhiyay Mudane Oken Gebiyow oo ah xoghayaha haatan ee IGAD. 2. In dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka maamul ee dalladda IGAD, iyadoo si siman ay u shir gudoomin doonaan sanad kasta mid ka mid ah dowladaha xubnaha ka. 3. Madaxda IGAD ayaa bogaadiyay guulaha laga soo hoyiyay dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab, iyagoo sidoo kalena ku baaqay in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka, taasi oo caqabad ku ah dagaalka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab. 4. Madaxda ayaa beesha caalamka ugu baaqay in dowladda federaalka Soomaaliya taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeedba lagu siiyo meelmarinta go'aamadii ay gaareen Golaha Wada-tashiga Qaranka ee Soomaaliya. 5. IGAD ayaa dhinacyada dagaalka Laasanood ugu baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dirirta iyo in wadahadal lagu xaliyo kala aragti duwanaanshaha jira. Dhanka kale, faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil argagax leh oo saldhigga Dharkeenley loogu geystay marxuum Xasan Cabdulle Maxamuud Giriig oo 60 jir ahaa, kaasi oo sidoo kale caan ka ah xaafadda Kaawagudi. Wararka ayaa sheegaya in marxuumka lagu dhex dilay saldhigga booliiska ee degmadaasi kadib markii ay goobtiisa ganacsi ka soo wateen ciidamo ka tirsan booliiska degmada. Marxuumka ayaa dukaan yar ku lahaa xaafadda Kaawagudi, halkaasi oo ugu tageen askarta lagu eedeeyay dilkiisa, waxaana la sheegay in marka hore ay lacag weydiiyeen, markii uu ka dhaga adeegayna ay jirtileen, sidoo kalena ay horey u kaxaysteen aabbahaasi. Nin la dhashay marxuumka oo la hadlay Somali Cable ayaa sheegay in walaalkiisa ay dileen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ee saldhigga degmada Dharkeenley, wuxuuna tilmaamay in markii ay wateen kadib ay soo waceen ayna u sheegeen in walaalkiis uu dhintay. Walaalkii sandaqadan ayuu baraf iyo cabitaan ku iibinayay, meeshan ayay ugu yimaadeen, way wateen, kadibna ciidamadii u watay ayay indhaha uga xireen, waxayna jir dileen. Nus saac kadib ay soo waceen, waxayna dhaheen walaalka waa dhintay ayuu yidhi. Sidoo kale wuxuu sii raacay, taliyaha ciidamada Dharkeenley ayaa dilay, laakiin waxay ugu dhaheen maxaabiis ayaa dishay, ana waa ka diiday waxaas, waayo maxaabiista bir ma haystaan, nin xabsi ku jiro maanta muxuu dili karaa. Dhankeeda, gabar yar oo u dhalay marxuumka ayaa si dareen leh uga hadashay dilka aabeed oo ay si weyn uga argagaxeen dadka deegaanka. Qof muslim ah oo aabbihii sidaas loo geliyo ma fiirsan karo, anna waan ka xumahay maadaama aan aabbahey wax u qaban karin, ayay iyaduna tiri marxuumka gabadhiisa. Ugu dambeyn, xaaska marxuumka oo iyaduna wareysi siisay telefishinka Somali Cable ayaa sheegtay inuu ifka uga tegay 4 carruur ah, waxayna sidoo kale baaq u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan laamaha amniga oo ka dalbatay cadaalad ayaan u baahannahay, ilmahayga aabbood 4 carruur ah ayuu iga tegay, hadda qaboojiye ayuu ku jiraa, iyagana inkiraad ayay wadaan, ayay tiri xaaska. Allah u naxariisto dhammaan intii dhimatay iyo weliba sidoo kale intii dishay gacanka xaq daran oo ugu dambeeyay aabbahaas 60 jirka ahaa oo ay dileen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba
dadkan ayaa waxay markaasi yihiin kuwo dhibanayaal ah ayagoo ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya in la keeno taliyaha ciidamada ciidamada ee degmada Dharkeenley si markaasi loo waafajiyo ciqaabta uu galay iyo weliba sidoo kale dilkaasi uu kula kacay aabahaasi miiska ku gadanayay degmada Dharkeenley gaar ahaan xaafadda Kawagoday. daawadayaal muuqaalkeen intaasi ayuu ka egyahay muuqaalka sii sheegay muuqaalkan muuqaal xigeentaan kulmi doona sidaasi nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.